بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي باب محله أنا وجد بموضوع أرتانا سكين برو خيرا برار بالعيرة وحنا هاي نيسو ماليلاند ركونون مقالة هرجيسة عندنا صومالي بانا هاي وحنا له صوماليلاند هيدو مقدس صوماليلاند هنولاتو أنا صومالي أنا إلهي هبركي ودبكا كتول قادو أنا جنا الله أنا بركي هذا صوماليلاند درنا هاي waanu ka xunnahay dhibta Soomaaliya haysata aad iyo aad baan ku xunnahay waayo dad walaalahay Soomaaliyeed mid kale ninka la yiraahdo BK ni waa ku qalad inuu hadalada galo sababtoo ah aniga horta BK waxba igama gelin Soomaaliya waxba igama gelin Soomaaliyana siyaasiba ma ihi laakiin haddana qofka bilaadankeed damiir kale uu ka damqanayo arrimahan oo kale bal aynu eegno clip yar oo halkana والله يرجع لنا كذي بيروح كنا وحو إرادة نيجينا الحمد لله انت هادين ku gudbina hadana imkaan eegno fartuun balbalaarka wal waxay tiraado fartuun balbalaar waxay leedahay waan u soo jawaabayaa bay tiri bal aynu eegno YouTube official kay sheegaysana waynu gali doonaa waxayna tiri fartuun balbalaar official taga markaan YouTube ki doonano si aan fartuun balbalaar wal u eegno inay u jawaabtay BK maxayna tiri fartuun balbalaar waa tan ku qorinaa fartuun balbalaar official ni horta BK waa Somalilander anuu Somalilander baan ku raacsanay Somalilandernimada iyo dhiigaba inta kadib laakiin dad walaalaheen oo dhibaataysan oo qarxay oo miina la qarxday oo cadkoodii la guray inuu ku taagsado oo iraado Somaliland ha fasaxaan waa ku qalad kumana raacsani waxaan oran lahaa Allah barakeeyo Soomaalida dhamaantood anuguna waxaan haynin Somaliland waxaan leeyahay Somaliland guul oo ha noolaato ilaahayna Soomaaliya ka dulqaada dhibaatada bal anaagna fartuun balbalaar waxay leedahay hadda ma u jawaabi kartaa talo BK baraaqa ma leedahay aan yara dhuuxno aamusno sidee hadda inoo sheegtay waxa jiri sideedaba ninka waan ka soo horjeeday arrinkan imkaan ka hadlaynaa ma aha arrin qof bilaadan ah taagayso ama godobo u qabto ama dhibaato u qabto waxaan ka hadlaynaa dadkii qaraxii dhibaatada ku gaadhay inaynaan ku taagtaagsan arrinkii dhan u qasmay iga soo dhaxlay